بسم الله الرحمن الرحيم mudane madaxweyne mudane xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo dhammaan ergada sharafta leh dhammaantiina sharaf ayaad leedihiin mudanayaal iyo marweyn sharaf ayay ii tahay inaan fadhigani 27aad ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa aan ka soo jeediyo khudbad waxaana dhambaal iyo salaan diiran idinkaga sidaa madaxweynaheena mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan iyo shacabka Soomaaliyeed ii ogolaada inaan marka hore u hambalyeeyo madaxweynaha 27aad ee golaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa si uu u sii ambaqaado kaalintan iyo waliba inuu ku jiheeyo jamacan guul iyo najaax This year's session also sanadkan uu fadhigan ku soo aadayna ay tahay maalinta caalamiga ah ee loo dabaaldego nabadda shalay waxaan isha ku haynay maalinta caalamiga ah ee nabadda waa maalintii loogu magac daray wadajirka iyo tadaamunka ee dadka guryahooda sida qasabka ah looga soo saaray iyo kuwa guryahooda uga soo tegay si ay u helaan nolol wanaagsan fariintan uu gudbinayo golahani guud sanadkan ayaa waxa ay tahay inuu ka hadlo nabadda iyo sidii lagu heli lahaa nolol karaamo leh ee dhulkan aan ku noolnahay in diiradda la saaro in la wada siman yahay ayaa waxay keenaysaa in loo dhaqaaqo dhanka nabadda iyo nolol karaamo leh ixtiraam badbaado iyo waliba karaamo kuwanina waa waxyaabaha loogu baahi badan yahay caalamka oo ay u baahan yihiin 100 milyan oo dad ah oo caalamkan ku nool laga soo bilaabo Suuriya ilaa iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe laga soo bilaabo Rohingya dadka reer Myanmar ilaa dalka Liibiya tirada isku dhacyada ayaa sii badanaya oo dheeraanaya meelahaasi waxa ay gaareen heerkii ugu sareysay oo aan la aqbali karin Soomaaliya waxay ahayd mid la soo daalaadhacaysay sanado badan colaado macaluul iyo faqri oo in badan oo dadkeeda ah ku barakaceen gudaha halka qaar kalena ay safaro khataro badan ay dibadda ku aadeen sidaa darteed annagana arrintaasi si aad ah ayaan u ognahay waxaana daruuri noqotay in albaabada loo furo dadkii ka hayaamay dhibaatadii ku habsatay sida annaga oo kale oo markaasi baadigoob ugu jiray inay helaan meel ay ku badbaadaan kana heli karaan nolol sharaf leh marka fursadani waxaan uga faa'iideysanayaa inaan u mahadceliyo dhammaan intii soo dhaweysay dadyowga u yimi iyaga oo haddana ay marayaan waqtiyo adag ilaa haddana ay soo dhaweeyaan iyaga oo si ruuxi ah ugu dhigan midnimada iyaga oo wadaag iyo daryeel basiya mudane madaxweyne Soomaaliya kor ayay u socotaa waxaan go'aansanay inaan horay u sii soconno ujeedkeenu waxa uu yahay inaan si wanaagsan uga qayb qaadano horumarka gobolkeena qaaradeena iyo caalamkeena iyada oo ay jiraan caqabado waaweyn haddana caqabadahaasi waxaan la wadaagnaa oo aan kala midnahay inta kale waxaan kor u qaadnay arrimaha amniga waxaana dib u gundhignay nidaamka iyo kala dambeynta waxaana la tacaamulaynaa isbedelada siyaasadeed bulsho iyo dhaqaale horusocodkuna ilaa iyo haatan waa uu socdaa waayo ummadda Soomaaliyeed waxa u beriyay waa cusub saaxiibadeena howlwadaaga nagala dhaxaysana waxay nagula jiraan safarka aan ku tiigsanayno nabad iyo barwaaqo waxaan sii wadaynaa inaan qaadano tallaabooyin lagu xoojinayo horumarka oo ay ka mid tahay dakhli abuurka si kasta oo ay u jiraan caqabado aad u khatar badan oo ka baxsan awoodda dowladda deymaha isbiirsaday oo saameyn aad u weyn ku yeelanaysa inaan kor u qaadno furfuritaanka nidaamka maaliyadda soo jiidashada maalgashiga dibadda iyo waliba helida fursado oo nagu adkeynaysa inaan samayno dadaalo dib u hagaajin iyo waliba midda xigta oo ah dib u soo nooleynta dhaqaalaheena waxaan bilownay inaan la shaqeyno hay'ado caalami ah oo maaliyadeed oo nagala shaqeeya howlaha annaga oo u marayna golahani oo raadinayno taageeradiina Mr. President, terrorism remains one of our pressing challenges. mudane madaxweyne argagixisada waxa ay noqotay mid ka mid ah waxyaabaha caqabadaha daran nagu haya midaasi oo ah dareen aan ka wada simannahay caalamka waxaana meesha ka saari karta aafadani annaga oo midnimo muujina si wadar ah iyo waliba joogta ahba
waxaana habboon inaynaan la harin wixii dadaal ah oo looga hortegayo kobaca ururada argagixisada caalamiga ah iyo saameynta fulineed ay leeyihiin ururadani oo ka mid ah Daacish iyo Al-Qaacida, kuwaasi oo aan ognahay inay yihiin kuwa ugu saameynta badan maxalli ahaan. waxaa la wadaa dadaalo tallaabooyin looga qaadayo ururadani iyaga oo lagu sameeyay faragelin military oo iyaga ka dhan ah, iyada oo la laba jibaaray weerarada lagu qaado. Soomaaliya gudaheeda waxaan qaadnay tallaabooyin aad u waaweyn oo aan ku daciifinayno awoodda Al-Shabaab. inta aan arrintan ka bixin, waxaan jeclaan lahaa inaan halkan uga mahadceliyo AMISOM nafurnimada ay sameeyeen, iyaga oo nala daba taagan taageero aan kala joogsi lahayn. kalsoonida ay noo muujiyeen, isgarab istaaga ay nala wadaageen oo ku aadan dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. si loo xaqiijiyo joogtaynta guulahaasi la gaaray, ayaa waxaan diradda saarnay inaan dhisno awoodda militari ee ciidankeena amniga qaranka oo aan xoojinno. ha yeeshee awoodda ciidankeena waxa wiiqaya ayaa waxa ay tahay cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya, oo si aad ah loo xadiday hubkii soo geli lahaa Soomaaliya oo ay dawladdu keensan lahayd. dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay sii wadi doontaa la shaqaynta golaha ammaanka iyo inta khusaysa oo nagala shaqaysa sidii loo qaadi lahaa cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya. faqriga, waxbarasho yarida iyo fursadaha nolosha oo yar darteed ayaa waxay ka qayb qaateen inay sii kororto rabshadaha ku salaysan xagjirnimada. rajada dhalinta oo yaraatay ayaa keentay inay ku biiraan shabakadaha abaabulan ee dembiyada geysta sida ururada argagixisada. dhalintan ayaa waxay qabaan baahi degdeg ah si waxbarasho loogu carbiyo ama la dhiso xirfadahooda. fursadaha nolosha dhalinyaradana loo arko inay muhiim tahay in la taabageliyo waxyaabahan istaraatiijiga ku salaysan ee la dagaalanka argagixisada waa howl aad u baaxad weyn oo u baahan in la helo hannaan faham qoto dheer ku dhisan iyo qarash lagu howlgalo. waxaana si joogta uga dalbanaynaa saaxiibada Soomaaliya inay naga caawiyaan hawshani aadka u dhibka badan, muhiimkana ah oo ballanqaadkiisana horey loo sameeyey. mudane madaxweyne, suuragal ma aha inaan ka hadalno dhulkan aan ku noolnahay oo annaga oo isku tilmaamin waxyaabaha waajibaadka ah si looga yeelo dunidani meel aan ku noolaan karno iyo meel ay ku noolaan karaan jiilka naga dambeeya. Soomaaliya waa mid ka mid ah wadamada halakeeyay masiibooyin dabiici iyo kuwa dad samays ah, kuwaasi oo si toos ah u sababay dhibaatooyin bii'adeed. roobku gabaabsi ayuu noqday, midaasi oo sababtay inuu fashilmo mirihii kasoo go'i jiray beeraha la tacban jiray iyo xoolihii inay le'daan, midaasi oo markii dambe keentay inay dhacaan abaaro iyo macluul. waqtigan haatan la joogana, Soomaaliya waxaa ka jira xaalad bini'aadamnimo. malaayiin Soomaaliya ayaa weli waxay la daalaadhacayaan abaartii ku dhufatay, iyada oo weli u goodinaysa inay keento macluul hor leh siina socota. Our national development plan stipulates a clear and realistic qorshaheena horumarinta qaranka ayaa waxaa si waadax ah oo waaqici ah u qeexaya inuu jabiyo wareegani dhibka badan. si kasta oo ay ahaataba, Soomaaliya iyo wadamo kaleba oo badan ayaa waxaa soo gaaray dhammaadka isbeddelka cimilada, midaasi oo ka yeeshay inay awoodi waayeen inay helaan ilaha ay u baahan yihiin si loo daweeyo mushkiladahani soo kobcaya. oo arrintan ku saabsan, waxaanu ku boorinaynaa dawladaha xubinta ka ah inay ihtimaam badan siiyaan heshiiskii Paris ee isbeddelka cimilada, midaasi oo qodobadiisa ay ka mid ahaayeen in hoos loo dhigo waxyaabaha keenaya isbeddelka cimilada. sidaasi si la mid ah wadamada soo koraya sida annaga oo kale, waxaan u baahannahay maalgashi muddo dheer soconaya oo ka mid ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, ilaalinta biyaha, horumarinta cuntada, wax soo saarka xoolaha nool iyo abuuridda fursooyin dhanka nolosha ah. Mr. President, we need to get a better streamlining global development and aid structures, especially for fragile states. mudane madaxweyne, waxaan doonaynaa in meesha aan nahay ka fiicnaano oo aan aragno inaan ka qayb qaadanno horumarka caalamka iyo hannaanka gargaarka, gaar ahaan wadamada jilicsan. annaga waxaan u baahannahay inaan dib u eegid ku samayno waqtigan aan ku jirno qaab dhismeedkii hore oo aan qaadanno tallaabooyin dhiiranaan ay ku jirto si aan kor ugu qaadno haykalada ay wax ku dhisan yihiin heshiiskii cusba ee hiigsiga cusub
oo u dhaxeeyay wadamada jilicsan oo 2011 lagu qabtay magaalada Busan koonfurta Kuuriya dhab ahaantii waxa uu ahaa tallaabo wanaagsan oo dhankaasi loo qaaday Soomaaliyana si buuxda ay u soo dhaweysay heshiiskani iyada oo midaasi ay jirto ayaa hiigsigii cusba ee dawladaha jilicsan ayaa waxa uu u baahan yahay in hore loo sii ambaqaado heshiiskaasi ayaa waxa uu dhahayaa mabaadi'da ku salaysan isla xisaabtan isdhaafsiga kaasi oo isku xiraya qaababka ay ku dhisan yihiin wadamadaasi kaasina waa waxa saxda ah ay yihiin wadamada jilicsan sida annaga oo kale badana waxaa la sameeyaa ballanqaad haddana mar dambe waxaa dhacda inaan la fulin ballanqaadkaasi mana aha in wadamada jilicsan in sidaa loola dhaqmo midaasina ma aha waxay isku hadlayn karaan wadamadaasi waxaa la ballanqaadayaa in dib loo dhisayo wadamada jilicsan haddana waxaa dhacaysa middaa cagsigeeda saaxiibada u qaabilsan arrimaha horumarinta badana waxaa lagala kulmaa niyad jab iyada oo haddana waxba laga helaynin ayay ku eedeynayaan dawladaha jilicsan oo dhahayaan waxaa jirta daahfurnaan daciif ah ma laha hay-adihii isla xisaabtanka u qaabilsanaa wadamada jilicsan middan waa wax laga welwelo oo sharci ah annaga haddii aan nahay wadamada jilicsan waxaan u baahannahay inaan qabanno wax wanaagsan annaga oo la dagaalamayna musuqmaasuqa oo joojinayna hantida micno darada ku baxaysa Soomaaliya waxay qaadatay tallaabooyin dhiiranaan ah oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa golaha wasiiradeena ayaa waxaa la soo marsiiyay oo la ogolaaday sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana la sameeyay xanaano lagu tiigsanayo dawlad wanaagga iyo isla xisaabtanka haddana sharcigaasi waxa uu soo maray baarlamaanka hoggaanka waddankayga waxa ay go'aan ku gaareen inaysan marnaba u dulqaadan doonin arrimaha musuqmaasuqa arrinta khusaysa maaliyadda waa inaan helnaa maaliyad meel saaran oo ku baxaysa howlgallada ay fulinayaan ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya oo aan UN-ka ahayn arrintani ayaa si dhab ah oo gaar ah u khusaysa ciidanka AMISOMta oo ka howlgasha Soomaaliya in ka badan 10 sano ee ugu dambeeyay waxay ku tallaabsadeen guulo la taaban karo howlgalladooda way sii wadaan iyaga oo haddana kharashaadka ku baxaya sanad walba aan meel saarnayn waxaan aaminsannahay in maalgelinta nabad ilaalinta ay tahay maalgelin qiimo leh oo dhanka nabadda iyo dawlad dhisidda faa'iidada ka soo xaroota maalgelintan ayaan waxaan ku aragnay Soomaaliya waxaana saaxiibadeena daneeya arrimaheena ka dhowrayna in arrintani ay uga soo jawaabaan isbuucyada iyo bilaha soo socda mudane madaxweyne ergada muhiimka ah iyo madaxda sharafta leh qodobka ugu muhiimsan ee nabadda iyo dawlad dhisidda ayaa waxa ay tahay sida uu waddan kasta ula dhaqmo dadka tabarta daran iyo dadka aan codka lahayn dumarka waxay door muhiim ah ka qaadanayaan go'aamada muhiimka ah ee la qaadanayo iyo weliba maalgashiga bulshada dhexdeeda annaga oo haddana marayna caqabado badan Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin muhiim ah oo arrintani ku saabsan intii lagu guda jiray doorashadii 2016 tirada dumarka ee ku jirtay baarlamaanka ayaa waxa ay ahaayeen 14% haddana waxay gaareen 24% maadaama uu hadafkeenu ahaa 30% arrintan lama gaarin dhowr sano ka hor 6 bil ka hor markii aan dhisayay golahayga wasiirada waxaan magacaabay 6 dumar ah oo ka tirsan golahayga wasiirada waxayna ahaayeen dadkii ugu muhiimsanaa oo faylashoodana ugu wanaagsanaa marka loo eego qarankeena waxaana ka mid ah wasiirada ganacsiga iyo warshadaha caafimaadka dhalinyarada iyo isboortiga haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka Soomaaliya haweenku waxay ciyaaraan kaalin aad muhiim u ah intii lagu jiray waqtiyadii ugu dhibka badnaa ee dalka intaasi waxa u sii dheer iyada oo haddana ah hooyo iyo xaas waxay ka qayb qaataan dhaqaalaha kuwa badanna waxay yihiin qaxooti iyo kuwa muhaajiriin ah iyaga oo haddana kaalin mug leh ka qaadanaya caawinaadda qoysaskooda iyaga oo wadamada ay joogaan ay uga soo diraan qoysaskooda Soomaaliya jooga lacago sidaasi si la mid ah dhalinyaradu iyagu waxa ay kaalin weyn oo mug leh ay ka ciyaaraan nabadda iyo dawlad dhisidda tirada dhalinyarada ee ku jirta
baarlamaanka soomaaliya aad ayay u korartay sidoo kale golahayga wasiirada waxaan u magacaabay dhalinyaro oo uu ka mid ahaa cabbaas siraaji oo markii dambe la dilay bishii May ee sanadkani kaasi oo dilkiisa aad looga xumaaday waxa uu noqday rajadii dhalinyarada Soomaalida wuxuuna ku soo koray xerada qaxootiga ugu weyn dalka Kenya si aad ah ayuu u soo shaqeeyay wax buu soo bartay wuxuuna u soo shaqeeyay dhowr hay'adood oo ka tirsan kuwa UN-ka waxaana u magacaabay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska waxa uu jiray 31 sano inkasta oo uusan wax badan na dhex joogin magacaabidiisa ayaa waxa aad ugu riyaaqay dhalinyaro kumanaan ah oo wadanka gudihiisa ku sugan waxa uuna dhalinyaradaasi u muujiyay in nolosha xeryaha qaxootiga si kasta oo ay u liidato taasi micnaheedu ahayn dhammaadka rajadiisa mid ka mid ah sharciyada UN-ka waxaa ka mid ah xuquuqda aadanaha har iyo habeen ayaan u shaqaynaa si aan u hubino xurmaynta xuquuqda aadanaha ee dalka oo dhan unkida hay-adani xuquuqda aadanaha sida guddiga xuquuqda aadanaha qaranka kaasi oo shaqadiisu tahay ilaalinta iyo kor u qaadida xuquuqda aadanaha midani waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday jihada toosan sharciyo muhiim ah oo ku saabsan xuquuqda aadanaha sida ugu fudud ee lagu cadeynayo inay jirto dembiyada ku salaysan kufsiga helida agabka lagula dagaalamayo kuwa ka baxsada ciqaabta dembiyada ay galeen xitaa haddii arrintaasi ay ku lug leedahay caadaadkeena si aysan sabab ugu noqon in dembiilaha uusan uga baxsan ciqaabta dowladaydu waxay go'aansatay in ay hesho wadiiqooyin ay u marayso si ay isku waafajiso xalka ku dhisan dhaqanka iyo nidaamkeena cadaaladda ee la wada aqbalsan yahay oo ixtiraamaya xuquuqda aadanaha iyo dadkeeda mudana madaxweyne qaramada midoobay waxay tahay hay'adda ugu muhiimsan caalamka kuna kulmaana wadamada caalamka si loo horumariyo loona xoojiyo calaaqaadka ka dhaxeeya laba wadan iyo wadamo kala duwan waana ubucda mabaadi'da UN-ka ee dowladaha si midba midka kale u ixtiraamo madax banaanida siyaasadeeda iyo waliba nabadgelyada gobolka waana mabda'a ay tahay in la taageero lana sii wado goor walba gaar ahaan marka laga hadlayo wadan jilicsan sida Soomaaliya mudana madaxweyne waxaan jeclaan lahaa inaan kaga faa'iideysto fursadani inaan codkayga ku biiriyo dib u habeynta lagu sameynayo qaramada midoobay ururkan ayaa sanooyin badan waxa uu ka soo shaqeynayay nabadda iyo xasiloonida si weyn ayaan waxaan u aaminsanahay in xogayaha guud that has greatly benefited from the UN system. We've also seen that it can improve its overall efficiency. With that, I would like to conclude by once again reminding all of us that we must redouble our efforts to focus on peace and decent life for a sustainable planet, and that will take a collective recognition that what happens in one corner of the world, and that will take a collective recognition that what happens in one corner of the world impacts another corner of the world. Thank you, and may Allah bless you all.